taaganahay rag ma haysano maydkayagii wakaa waa taa hooyadii dul taagan waa taa maydkayagii waa taa maamadii ooyeysa waa la qashay keliyii baa lagala baxay beerkii baa lagala baxay communitigii waa diiday inuu inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waa geeri naxdin leh iyo argagax waa wiil Soomaaliyeed oo keliyaha iyo beerka lala baxay kaasi oo ku sugnaa dalka Mareykanka gaar ahaan Ohio Columbus sababta lala baxay iyo maamo fariin u dirtay madaxda Soomaaliyeed ayaa barnaamijkeena ku daawan doontaan fadlan u soo duceeya wiilkani maamadiisa inuu Allah qalbigeeda u qaboojiyo isagana jannada firdawso Allah ha geliyo muuqaalkan sheer gareeya si ay dad badan u gaaro sheer gareey ka qayb qaado inuu duceeyo wiilkani Soomaaliyeed muuqaalkan like saar waad ku maasantihiin daawashada aad daawanaysaan barnaamijka halkani aan ku soo gudbino muuqaalkan waa muuqaal argagax leh waxaana ka reebnay muuqaal qaybo qaar ah oo la soo bandhigay qaabkii loogu baxsaday beerka iyo keliyaha wiilkani Soomaaliyeed aad u jeedaan oo saaran sariirta waxaana ag taagan hooyadiisa oo aad u argagaxsan wiilkani oo ku sugnaa dalka Mareykanka ayaa loo geeyay isbitaal sida la sheegay waxaana keliyihii kala baxay dhaqaatiirta dalka Mareykanka wiilkani waxaa la waayay Soomaali gacan qabata ama u dooda in ay xaqiisa u raadiyaan wiilkani keliyaha sida xaqdarada ah loola baxay community ka dhisan dalka Mareykanka gaar ahaan Ohio Columbus ayaa iska fageeyay in ay u doodaan wiilkani Soomaaliyeed oo keliyihiisa lala baxay waxaa dhibaatadani noo geysatay in dal shisheeye oo sidaani ugu ciyaaro ubadkeena waxaa keena siyaasad xumida haysata madaxda ugu sareysa ee dalkeena oo mar walba dantooda fiirsanaya haddii madaxdeena Soomaaliyeed ay ahaan lahaayeen dad aad u wanaagsan ee ka fikir shacabkooda sidaani ma noqon lahayn in uu caruurteena ay keliyaha ay kala baxaan gaalo danaystayaal ah haddii aanan Soomaalinimadii Soomaaliya waxaan halkaani dhigay qabyaalad iyo waxaan loo joogin iral jecleysi intaan ku jirno qabiil hebel wallahi inaanan horumar gaareen sidaani ayaa u wadkeena keliyaha loola baxaya maalin kasto waxaan heenaynaa boor iyo oohin haddii aan shacabkeena Soomaaliyeed meel iska saaro madaxda ugu sareysa dalkeena in ay wax noo qabtaan haddii ay wax qaban waayeen kabahooda ay gacanta ku qabsadaan haddii sidaas waxaa sameyn kara shacabka Soomaaliyeed waa dad aan war maqleenin aan dantooda aqoonin community-ga Columbus Ohio ayaa iska diiday inay u doodaan wiilkani keliyaha lala baxay waxaana iska fageeyay oo diiday culimadii ku sugneed ee Columbus Ohio oo diiday in ay u doodaan wiilkani keliyaha lala baxay waa arin argagax iyo naxdinteeda leh u soo duceeya wiilkani Soomaaliyeed oo keliyaha lala baxay muuqaalkana sheer gareey si uu gaaro qof badan waxaan maamooyinka ku nool qurbaha ka codsanaynaa in ay caruurtooda ilaalsadaan ama markaysan u dhalaan caruurtooda ee hal sano ay ku hayaan dalkooda si ay dhaqankooda aad ugu bedelaan intaan ayaa ku soo gabagabeynaa barnaamijkeeni gaarkaan ku eegeynay wiilka Soomaaliga ah ee keliyaha lala baxay wixii ku soo kordha warbixintan oo dhameystiran waxaad ka daawan doontaan halkaani fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar muuqaalkan like gareey laagto waa inuu muhiim siina share gareey barnaamijyadeena waad ku maasantiin daawashada daawanaysa barnaamijka halkaani aan ku soo gudbino إنا لله وإنا إليه راجعون شاكذا يدوى تاس أفرتا دمران كتاغنهي رقم هايسانو مايدك يجي وكا واتا هو يدي دل تاغن
وتاميدكيغي وتمامدي ooyeysa waa la qashay kaliya baa lagala baxay beerkii baa lagala baxay community-gi waa diiday inuu wax ka qabto masjidkii waa diiday inuu wax ka qabto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun xasbi allah wa ni'mal wakiil Soomaaliya heerkaasaanu maraynaa waanu ba'nay waanu baabanay nolol malihin naf malihin rag ma haysano waxaan ku noolahay ma jirto afartaa dumareen ku joognaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun barigii baa lagala baxay meel walba waa la qashay waa taa waan eegaynaa rag la'aan ba halkaana turtay xabaalahaasana lagu gurayaana lagu awdayaana lagu aasayaa inamadayadii dhammaade ilaahay subxaanahu wa tacaala noo maqan Soomaali maxamedey ragga isku haysta madaxda isku haysta ilaahay waxaan bariyay in cuquba cirka idinkaga soo dhacda intii aan xaq rabin waa taas أفر إنا لله وإنا إليه راجعون شاكذا يدوى تاس أفرتا دمران كتاغن هاي رقم هاي سنو مايدك يجي وكا واتاهو يدي دلتاغن وتاميدكيغي وتمامدي ooyeysa waa la qashay kaliya baa lagala baxay beerkii baa lagala baxay community-gi waa diiday inuu wax ka qabto masjidkii waa diiday inuu wax ka qabto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun xasbi allah wa ni'mal wakiil Soomaaliya heerkaasaanu maraynaa waanu ba'nay waanu baabanay nolol malihin naf malihin rag ma haysano waxaan ku noolahay ma jirto afartaa dumareen ku joognaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun barigii baa lagala baxay meel walba waa la qashay waa taa waan eegaynaa rag la'aan ba halkaana turtay xabaalahaasana lagu gurayaana lagu awdayaana lagu aasayaa inamadayadii dhammaade ilaahay subxaanahu wa tacaala noo maqan Soomaali maxamedey ragga isku haysta madaxda isku haysta ilaahay waxaan bariyay in cuquba cirka idinkaga soo dhacda intii aan xaq rabin waa taas